jundigiisa ciidankiisa ayaa wuxuu ku soo baxeen quraanjo meel degan quraanjadaasi waxay ku tala gashay inay badbaadiso shacabka iyo qabiilka quraanjo haye mukallaf ma aha Soomaa aakhira iyada waxba lama weydiinayo Soomaa annaga mukallafiin baan nahay annaga waajibka noo yaala marka waa mujtamaceena ma badbaadin karno mujtamaceena dhulmiga kama badbaadin karno mujtamaceena faqriga kama badbaadin karno mujtamaceena amni xumada kama badbaadin karno mujtamac isjecel kama dhigi karno mujtamac isku soo dhawaada kama dhigi karno mujtamac diintiisa kama dhigi karno mujtamaceena annaga hadaanu istaagno bacdallah mujtamaceena waa badbaadin karnaa mujtamaceena waa badbaadin karnaa saan ku badbaadin karnaa الله سبحانه وتعالى وامد كدايا هدي لهلو قرية ميل دقن ضد ميل دقن او إلهي الرميي او الله كبقي روبك ايانو امر مسينينا وانت صوما استقامة بانا لقربا توسنان بانا لقربا لكن مركان نغنو بلشو عام كل نغطي ظلمك إيا حد قدبك إيا إسحاق رده إيا إسياسدة وهل أنا إلا من غزية أي نغط إن غوض غويت وإن ترشد غزية أرشد هذا نغط أنيجيو نبى هذا كور وحاله يلي كتاب قرآن كا نمن هذا قرآن كو آخرين بوها بلي كمان أبو كتاب قرآن سو قبته وسو كتاب كا أنت بدن حجر ولا جسوا آخرين شري خميسي أربعية أنت ولا جسوا آخرين أنت بدن لحظة أنت بدن وعرف صمارت وعسبي ينبارش وريبا لو ما أنت محاج جربني كتاب بعد كيف أنت طول كاغا إن دحدا لغا جيران كفهمي طول كاغا إن دحدا لغا جيرو طول كاغا كبتادا maxay dheen دحدا لغا جيرا war kabtaada iyo tolkaaga iyo kabtaada waxa dhaxda lagaga jira markuu tolkaagu xaq ku taagay markuu tolkaagu toosan yahay markuu tolkaagu ilaahay ku gaarsiinayo cabsi subhanahu wa ta'ala oo islaamnimada laakiin in umadu ay iskugu hiiliso dhulmi waa miduu nabigu nooga digay waxa nabiga loo soo diray taas baahid inuu unsur khaka zaliman aw madluman inuu saxiixiyo qaacidada ay haysteen nabigu wuxuu yiri da'uha fa innaha mumtina war way uraysaa ka fogaada aw bid'wa al-jahiliyyati wa ana bayna adhhurikum da'uha fa innaha mumtina war ma anigoo joogaba yaa al-muhajirin wa yaa al-ansar war ma anigoo jira maanta reer hebel iyo reer hebel iskugu yeeranaya iftakhara fi ahdi Musa alayhi salatu wassalam labanin ayaa waqtigi nabi Musa isu faantay bal dhageysta midda wuxuu yiri ana fulan ibn fulan ibn fulan ibn fulan abtirka markaan tirinayna aan ku raaxaysanayno hatta adda 9 sagaal awoobu tahay wafaanaya markaasuu yiri faman anta la abalak war abaha kuwaye adugu xageed ka timid ila gumeediyow inagu saan dhaano kale fa awha Allah ila Musa nabi Musa bu ilaahi u waxyooday oo yiri labadiini isu faantamaysayo ki sagaalka awow tirsadayo sagaalkaaga awowba wa ahlun nar aduguna toban batuta la ilaha illa Allah wal hadith sahih ki saddexda tirsadayowna labada awow ahlul janna adiguna ahlul jannata qabaliyadu wa qurnaha laga fogaado nabigu doorshaan bu ku tilmaamay harwal wal balka harwal walka la yiraahdo kubad muxuu ka dhigtaa saxarada xayawaanka iyo saxarada bini aadamka qofka qabiilka ka shaqeynaya wuxuu ka shaqeynaya waa saxaro inta ogaado nabiga yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kullukum banu adam wa adam khuliqa min turab والله لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان والآدم بات كتمادين آدم نعرى لغا أبوري إلهي بان كل دارتي قبلية ذوات كهريسان هذيك الدورشان كتكلي ذنيسان أيها النبي صلى الله عليه وسلم محانا الأمر مركة الأخوة في الله ولا لماذا إسلام كم محاكم معان ولا لماذا إسلام كم محاكم إدقون ما أنت إناد قعمها إسخبستان أو أخي في الله أمرك دهدان سيدو النبي أولا لي
بين المهاجرين والأنصار ميان لو ولا لو بكرين ميان لو ولا لو بكرين تقول شيء قارن ميان ننقاري كرين هاو نقاري كرنا هدا ولا لونه وإلهي درتي كو ولا لونه وده إسلام كان ولا ليي إنا ولا لنا محاو دليلة سأنك هذا إسلام تكني سأنك هذا إسلام فرنا سأنك خير كده يسرينا سأنك استووا إمامكم مركونه سأنك يسود وانينا لكن واحد يسود وادين من لغها مسوا قلبك واحد دونيو إن يسود وادان وقلبك إن يساته واحد كجران النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية بين قلوبكم واسمع يسان صفوفته هذيك لو قلوبتنا أيو إله سبحانه وتعالى اسكو قراعيا ولا لماذا إسلامك هو كنز الأخوة كنز عظيم ولا لماذا هو كيد وحلو دقا أن لهلينين ما تغانا دتك عرش الرحمن هوسكي سار صلاة ودتك إلهي درتك ولا لوب مال انت قيامه إلا وذا قاوية هي بنك اللي تشوغو قف قرعة هالك اللي كينيو قف والبقو نفسي نبي والبقو نفسي لهي قف والبنا ديدك u gaaray dambigiisu intuu dhanna maalintaas ayadee khatarta ah dad baa arshur rahmaan hooskiisa fadhiya ma taqaanaan waxa kamida dadka ilaahay dartiisa jeclaa warajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi waxa isku jeclaadeen waa maxay walillahi wa fillah haday kul mayaan lillah haday kala maqayhiina fillahi jalla jalalu idan أن إلهي درادي اسكتش علىنا سبحانه وتعالى بسم الله صوح في علماء إلهي درادي اسكتش علىنا ولا ريال صوص ما إن إلهي درادي اسكتش علىنا صور لي وحول أكثر ما ولا ريال إلهي درادي أسوق قيمين وإلهي درادي اسكتش علىنا سبحانه وتعالى قول بقارنا قبلني من قارنا نول كم برواقو نغنيا نول كم برواقو نغنيا تاسنا وحويان أن قرآن شدي كلابت قرآن شدي مدبر دواقدي مركي أركت النبي سليمان يعيد كسو صعود قصداسي صدح الريموت بكوتشرت أو لياب له أو أن شعل هاي إن إجا قادتان نولش نونا أي قيب كالنقط صدح لهم حيته وحيت رأت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قرآن شجريه نجلا وليبا مدة دواقي سما ضحذي معها وقرآن شك مدة قرآن شوينك أو مسؤولية ذي قرتي وإن يساتي محانكو قرنينا قل يها اللغة برتا نحو خاصة بريا برتا وحي برتان أو لبرا وحلي هذا معرفية نكر أيا لبرا وعلوم تعرفه أي متغنى قيب وينكأ على مدى لو قرتا نكرة وحن لا أقولين إن لقرنين وحن معرفتنا على ما لو قرتا نملة توين بسارا الإيه إضافية وحن لو قرنين من ما صارنا معرفتنا سادرات إني تهاي قرآن شو كبيرة قرآن شوينك تنوين تسارا بلو قرنيها قالت نملة بلوي حل بيس صارت مرك وقرآن شعادو حل سساري مركب ما قرآن كان كل ذناي يا أهل الجذي ورب قرآن كان كل ذناي نجح ودذا يا لمركب سكاتوري ورقد الأفك سكاتر تمركب ودذا كتوريس ما قرآن كان كل ذاته حل اسمه ساريس حيالها الله يا أبي وحاكمه وإن شاء الله عادة ذا أنت المجال شو أرجع عن مفتل سكتو فيه بش هلا تشوشي عن مفتاس عن مفتون بش لصير يميدك ورشوشية صح ما وركا بكتيريا كذا ناس جراثيم بكذا ناس حضارة ماها الرمى فربضن بأوبها إلا صعوب وحقيقة أنت أنا هذا عندنا قليل أنت كلام قاعد الناس هذا أنت أنا وأنا قلنا دعوة عن جارسيني قفل بو هذا أنت أو مغلي هذا عاوي قيس كيسي جارسيو سو مقالة بالروم سوداي أو برواقة بهلينو وركو واسلاسوي هرتا تاسي قبر كلها يعني قرآن شداسي وقرآن شير أو كميدا محل قرآن شويك قرآن شدا كميدا تاس وامد
midda kale waxay tiri udkhuluu masaakinakum guryihiina ku xarooda waxay hormarisay xalkii ummaddu waa inay noqoto ummad iijaabi ah innaga negatifkaan hormarinaa eedan hormarinaa qayladan hormarinaa ayadu horta waxay tiri horta bal horta is aruuriyo oo horta bal godkiina gala dadka waa la badbaadiyaa marka hore udkhuluu masaakinakum kadib ay u sheegtay dhibka laa yaxtimannakum sulaymaan wa junuudu mishkiladu meeshay kaaga imaanaysana way cadays wayna u cudur daartay sulaymaan oo waxay tiri wahum laa yashcuruun hadda waa quraajee ma arkaane hadduu nabi sulaymaan idin arkaya idinkuma istaageene waxaan ugu cudur daaraynaa idin ma arko ummaddu marka maxay u baahan tahay koow inay noqoto umma iijaabiya aana noqon umma salbiya ummad negatiifa inaan noqon ummad nin baa soo xajiyey xajka waran baa leeyahay ikhtilaaf badan baa ka jiray buu yidhi xajka isdhexgal rag iyo dumarkaa ku badnaa buu ishiisu waxay aragtay inta carafa ma arkin oo musdalifa ma arkin khayr ka jira oo muusa arkin mina ma arkin iyo jamaraadka la tuuranayo khutabka la akhrinayo kacbada la tawaafayo sacyiga bayna safa wal marwa xajarul aswad الركن اليماني midna ma arkin ninkan ishiisa way cawirantahay Soomaha dadka qaar indha cawiran baa jira oo arkayo wixii xun inta negative ka arkaya maya النبي كان يحب الفعل nabigu wuu jeclaa yidi maxaa la yiraahdaa saadaalinta wanaagsan Soomaaliga adu sax yahay sax ma saadaalinta wanaagsan nabigu waa jeclaa sallallahu alayhi wa sallam marka waxaad u garanaysaa quraanjadu waxay tiri la yaxtibannakum wahum la yash'urun illa su'udur daaro way qodobka kale runta muhiimka ah aan doonayna asagana inaanu qaadano marka qodobka maxaanu ka faahno quraanjada inaan bulshadeena badbaadino oo aad adigu isu xil saarto shayga qalloocan adu inaad qabato hadaa tahay nin dhalinyaro iyo hadii aad tahay qof weyn labadu mas'uuliyatul bi'ada xilba naga saaran bi'ada ma taqaanaan meesha aanu ku noolahay nadaafadeeda iyo bi'adeeda iyo caafimaadkeeda ayadana xil weyn ayaa naga saaran mas'uuliyatul islaahi bayna mas'uuliyatul islaahi bayna al-mutakhasisiin waa mawduuc weyn oo cadiim ah dadku way isku dhacaan laba qabiil baa isku dhaca oo laba isqabta isku dhaca oo laba isla dhalatay baa isku dhaca oo laba tijaaro ka dhaxaysa isku dhacda maxay iskugu dhaceen lama dhahe ceebtu waa in la kala maslaxayn waayo soo saas ma qala jalla jalalu wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma war haday dad walaala ismaan dhaafaan war islaahiya oo intiina kala u gurmada waa maxay daacadna haydin ka noqoto oo maxaa kamida فإن بغض إحداهما على الأخرى هذه أي قول لكري وايو دقيسة وركا هذه قول لكري وايو إسكوكوتاقا ساسي شريعادو أي علن كيدو أبابانايا ساسو ظلمي كيرانايا هذه اللي أغيهي مركي لبا قول إسكو دعان أما لبنين إسكو دعان أو قرطو ذا لقالو كي لكري وايو هذه اللي إسكوكوتاقي لها لبنين يعني ما هم إلا استقال لهم منيسا ما يلا اسمه دقالين ليش؟ لأن مركي قرط الله قالوا وحوغانا يأين كديدة لسكوتي وحوغان لها وقاضل لها وشوغي لها يو ويستاقي لها صومالي دينا نين كميدة وصومالي اوهو قالا او نين مجعيس دان شيغو وصومالي دي قيب ترما وقيب صومالي wala garnaya ayaa laba qola isku dhacday dadkii islaaxa u raacay baa asaga lagu daray waana gaal waa ko Soomaaliya diray beelade garti markii la galay ayaa nimankoodii buu yiri war niman yahow aan garta qaadano nag way diideen maqribkii markii la gaaray ayuu wadaadkii ducada isla istaagay salaadii اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين سؤال كوا دعاء لسان كوا حدا ان قرت كدين لي مكو جيران حابا لين لو كلا كحيي حدا بدو دعاء لسان
oo nimankii hadda garta aad ka diidanaydeen aabad Allahumma ighfir lil muslimiina alladhi hadda been ba sheegnaan oo kala kaxeeyay bari waxba idin ma dhaxeeyay heshiiya been ba sheegaysaan hadii la ogaan lahaa labadan inay isku dhacda akhyaartu markay soo gurmadaan markii xaqoodan la galo gartooda la dhageysto goortay cadaatay hebel inuu gardaran yahay oo uu qabsoomi waayo markuu og yahay in la iskugu tagayo ya uu qabsoomayaa taa ogaada laakiin markuu og yahay gardarro garab og marka la gelayaba aan daacad laga ahayn markii qoladan xagga laga helayna uu ciidan kale helayo inuu istaagayo ma umaraynaysa ma istaagayo dhiig baa marka dambe daadanaya ittaqullaha jalla jalaaluhu dhiigu wax sahal maaha si fiican ii maqla Soomaaliya ii maqla reer Godooyo ii maqla reer Shabeellow ii maqla fulay xantii ma moogo waan la socdaa wax yar magaalada aan joogo laakiin waan ogahay dardar hor la inay jirto dhulka xaqiisa dhinacyo badan waan la socdaa ittaqullah ha ku banaysanina dhiigiina ama qof muslima dhiigi dhul ha ku banaysanin dhulka ilaahay baa leh innal arda lillah war dhulka ilaahay baa leh idinka badan wa wallahi maanta abtigay hooyaday walaal shaqeed ayaan maanta waxaan u aaday meesha la yiraahdo maxay cadaado cadaado baaru aad soma dhulka ayaa dhowr shirkadood intay kala qaybsadaan ayaa idinkuna noqon doontaa qodob hadda dhulkiina ka shaqayso weeyaan oo aad nicmadiisa garan weydaan laakiin marka idinku isu jeedaan oo dhul qallalan ar isoo mara malagii gala tan carruurta dhigi jirnay ay tahay baa weeye labadii dibi ee maxaa la yidhaahdaa isdagaalaysay kadibna uu dhulwaagu idinka markhaati baa noqonay wacyigelinteeda waa fahanteen soo maaha dhulku waa idinka weyn yahay soomaali buuba la eg yahay iska daa soomaali galbeed iska daa soomaalida kaluu la eg yahay war dhulkana ka shaqaysta dhiig muslimaa ku daadanina qofka meel uusan lahayn ku dhagayowna war adigu xaqaada lahayn maxaad ugu dhagaysaa soo la yaab ma adigana adiguna ku qabso ku qadimaysi macnaheedu maaha soo ma waa inaad waxaad qabsanayso aad ogtahay adigu inaadan lahayn inaad leedahay marka dulmiga xagga iyo xagga midna lama ogolo marka ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha laga xishoodo dawladdiina ilaashada oo amnigiina ilaashada oo magaaladiina waa ka habeennimadii lama socon karo wiil yar yar laga baqayaa bali maxaa wiilasha yarka looga baqayaa intanoo oday ah intanoo akhyaara intanoo ciidana intanoo mataqaanaa mas-uuliina ayaa jooga magaalada waa in la islaaxsadaa saan ku bilownayba warka waan dheereeyey waan ogahay islaaxaasi waa muhiim lamaanaha isqaba fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriida islaaxan yuwaffiq illaahu baynahuma hadday daacad yihiin ilaahay baa wanaagga waafajinhaye carruurteennu inay isguursadaan oo guurku badan yahay warkaa waan hayaa laakiin furiinkuna wuu badan yahay war soo saas maaha furiinkuna waa badan yahay cadaaladda ha la sameeyo cadaaladdu waa muhiim ninka 2 xaas lahow ninka 3 xaas lahow ninka 4 xaas lahow ittaqillaah cadaaladda ilaali maalinta qiyaama waxaad imaan bahasha badda ku jirta ee berberayda la dhamaarteen saasuu nabi ku miithaaliyey caadili baa laga raba way weynaatay islaantii hore ma jirto wax la yidhahdo ma jirto yaa ku yidhi islaam baa weynaatay yaa yidhi islaam baa weynaatay ma maqasheen muxaadarada la yidhaahdo 40 jir raalliya ah oo rabbigee taqaana
ورaaxada adduunka ragow yaa la mooganin islaan 8 sano jirta la weydiiyay dumarku goormay guur ka qoostaan kuwa iga waaweyn hala weydiiyay war islaamahan aan leedihiin yar yar ka leedihiin way weynaatay oo way dhalmadaysay war islaantu waqtigay dumarku ugu fiicnaayeen ugu fiican yihiin waa 40 jir ilaa 50 jir inta hore way dhalaysay way rafaadsanay war soosaas ma marka islaantu hore way weynaatay walaalayaal ka daaya war walaalayaal ka daaya war walaalayaal ka joojiya war islaan ma weynaato inta ogaada qulna xariista waa gabdhihiina waa walaalihiin muhiimadu waxa weeye war walaalayo ninkii hal xaas ka badan qabow walaalo cadaalad ogow waa mid waa muhiim cadaalad ogow hal shay baa nadeeqa san habeenka dhawada sheegay aan ku celiyo halka shay ee nadeeqa kulli reer goday saawtiin waa inaan ku sheekaysanaa maxaa nadeeqa cadaalad maxaa nadeeqa cadaalad dhulna ma deeqo xoolana ma deeqaan hatta haweenna ma deeqaan soma oo anaga furayno guursanayno saas ma wax adduunka qofka wax hal wax baa deeqan waa cadaalad maanta cadaalad hadii la helo qof walba qadaad buu u seexan arsaaqadu waa iimaan ilaahay baa raali naga noqon dulmiga yaraani walaalayaal dameeraha kala dardaarmaya walaalayaal dameeraha dhinaca u socda ee barbarka u socda waa weydii maxaan ku dhacay dameeraha magaalada guday maxaa ku dhacay waxa lagu yiri musmaaraba lagu rakay ashhadu an war magaalada kulula war dameerihi uquubad war ilaahay ka cabsada subhan war ya dameer war ilaahay laga cabsado war dameeraha musmaarada laga bixiyo war culumay arinta wacyi gelin ka sameeyo war arinta go'an war ama dameeraha magaalada laga saaro ama ninkii dameer le mas'uuliyiinta waxaan u sheegayaa dadka mas'uuliyiinta ee hadda fadhiya kolba rag baa fadhiya ama risaaladu ay gaadho mas'uuliyad baa idin ka saaran dameeraha magaalada wallahi umar wuxuu dhigi jiray hasha ciraaq daaqaysa hadday simbir raxaato oo kufto ana laga rabaa yuu umar dhigi jiray maxay tahay dameeraha magaalada dhex socda ee haddana lagu shaqaysanayo ee haddana saa u socda waa maxay waxa weeye ragga nin kasta oo dameer la waa in la tiriyo waa in la diiwaan geliyo dameerkiisu inuu sax yahay in kale waa in la ogaadaa wixii hore u dhacay way dhaceen laakiin waa in laga diiwaan geliyo dameer dambo dhinac u socon karo inuu jirin hadii kale wallahi uquubad idinku soo degaysa xayawaanka isa loo gala saxma sallallahu subhanahu wa ta'ala ilaahi waxa weydiisanaya jalla jalaaluhu inuu kelimada uu nagu anfaco hal mas'uuliyad baan ku dari lahaa ee waqtiga idinku dheereeyay waana mas'uuliyadda xagga aqliga naga saaran iyo maskaxda maandooriga laga daayo war qaadka joojiya war reeraheena baan biil u laanahay war ma waalantiin culum allah war caruurteena baan biil u laanahay war maxay war naga xanaajireen jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum asal allah subhanahu allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا لسانا ذاكرا عملا متقبلا تقبل صلاتنا تقبل صيامنا اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا في جملة من هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار إله سان ما يشاء وكلنا الجنة هذا نوكلمي إله يسان ما يشاء وكلنا الجنة هذا نوكلمي إله يوحك الأمان إيمان رال النقش هذا الأرهال النقل إله نجر رال النقل إله راضي هالشذ هذا إيمان إله نجر رال النقل إله عذاب كاجا كسو كاب عبصينا إله عذاب كاجا نجبد بادي إله وعذاب كاجا نجبد بادي إله يوم ديوان كملائكة الرحمة حسنات كذا إله نقر إله نقدر كوا أرضه دون هؤلاء قوم لا يشقى بهم جليسهم قال سوى قال قفك الله فريسوس هوجن إله نقدر وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه